Elman waxaad moodaa in ay xoogga saaraysay ciyaarista kubad qurxoon iyo ilaalinta shaybka kooxda oo ahaa 4-4-2, laakiin ilaalinta position-ka macno ma sameynayso haddii uusan natiijo lahayn. Sidoo kale, cadaadiska MCC oo xoogganaa ayaa u diidaya Elman in ay si fudud gadaal uga soo dhisato. Waxaad halkan ka arkaysaa sida ay kooxda Elman isugu dayeysay in ay kubadda dhulka dhigto, iyo cadaadis aad u xooggan oo saaran hal baas oo qaldamana oo halis keeni karo. Marka aad fiiriso qaabka MCC ay kubadda gadaal uga soo dhisayso, waxay bushgaraynayeen ciyaartoyda Elman, kadib iyagoo space fiican haysta, halis badanna aysan jirin ay gadaal ka soo dhisayeen. That is position with purpose. Waxay wareejinayaan kubadda iyagoo raadinaya fursad ay ku galaan gudaha, weliba si joogto ah 90 daqiiqo oo ciyaarta. Waa markii koowaad kubad noocaasa aan ku arko horyaalka dalkeena. Elman dhisideeda kubadda wuxuu ahaa position without purpose, laakiin this is their first match of the league. I wish them a good luck, but MCC is really kooxda MCC dhinac kasta waa ka diyaarsaneed. Labada dhinac ee weerarka marka la fiiriyana, dhanka midig ee MCC ayaa aad u halis badnaa. Weerarka MCC wuxuu ka xooganaa dhankaas midig, waana halka ay saarnaayeen ciyaartoyda maartay Xasan number 8-ka iyo Zakariya number 14-ka. Fursadaha MCC inta badan dhankaas ayay ka soo abuurmayeen. Ugu dambeynna waa halka maartay goolka guusha uga yimid kooxda MCC. MCC oo ah hadda kooxda difaacanaysa horyaalka ayaa marka la fiiriyo qaabka bandhigga ciyaartoydii koowaad ee sanadkan, la isdhihi karaa in sanadkan ay difaacan karaan haddii aysan maartay wax isbedelin oo ama wax isbedel uusan ku imaanin qaab ciyaareedkooda.